بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigu maanta wuxuu ku saabsiisayaa tasbiix. waxaanan u doortay bishan ramadaan maadaama lagu jiro iyo caalamulislaami maanta waxa ka socda daraaddeedba. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitnة wailayna turjacuun. naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadha iyo hadday macaantay, hadday adagtay iyo hadday fududdahay, hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba, ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa. waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari waalkhayr. sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyay subxaana wa tacaala. khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaami, sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay, oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn, imtixaan ka weynina la geliyo, oo ilaahay subxaana wa tacaala geliyo uu ku guulaystay. dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey. dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami, sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay. qaar la dilay, qaar bukooday, qaar la xidhay, qaar la caymadiyey, qaar dalka laga saaray, qaar dab lagu riday, mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay. haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaana wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. innagaa layna faray inaynu dadaallo, laakiin markaynu dadaalkan la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno. waxaa kaloo intaa ka dambaysa, qofku wuxuu mas-uulka yahay intii awooddiisa ah. laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha. haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi. markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey, dumar iyo carruur la tirtiray, dad gawaadhi la dulmariyey, qaar dayurada lagu garaacay, qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey, qaar naabaa lagu riday, wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima inuun kugu hadhsantay. qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala tiryaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo. dadkase in badan ay hilmaameen. ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay, ee isaga lagu jeesjeesay, ee dhib oo dhan loo geystay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla. qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah, tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah.
إلهي نبي الله محمد وحوت المامي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون هذا حق الشاق بالليل أنا كاكف لنكون ليلية كو إلهي غير كي عابد يدين لان توبحي لكن هدنا إلهي وحط المامي ساقو انتي ساريد بركي الليل شاق وحكا الله المامي دب كلو دريم يهدنين يشرته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با إلهي وحنو أقنهي با إلهي لابتك عرير يوميسو وصاني لابتو عرير يوبين iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhaweyday tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhaweyntu ku daba galo halkaad istaagtaba yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nabi maxamed adeerkii rumaa daba socday abi lahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nabiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan حتى وحل لو ديدي إن وحشيكي كرو وحل قارسيه حد بلشدة لقد دعيين واليه يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إلى هذان طفيل بن عمر وين قرين إنه دقا صوفر يستي يسأقول لقد دعيين إنه كان واليه موح سحره ضماد وين قرين إنه نبي قبوا يمو يدي وروح على يدي حوجا والية كويسان كدويو ريح دان طفاية وحبان أخرياية عديدي جو النبي قدريمي عليه الصلاة والسلام من طول لقي دنك كلا إلهي العاصي يسنم العبد يا رب السماوات والأرض اللي قالوا بينه وتاجي لعلك باخع نفسك إلهي كلي نفترض عديدي قالين يسامها لا جيسه إن رمين ويانا الله سبحانه وتعالى درادي هذا بقى إلهي داوسي وحاصحنا اللابتي سكا ميره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى التصبيح سال إلى أديكو كله هيا أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التسبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذان وفقين أدو إلهي عب يحمى كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشي أن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمدنا وعكس كذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا دقوم حديثه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكر يريسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي سبحانه وتعالى وحي داوك آغتا هيضيق الصدرك كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوير الصبر وحيكو هذا أيامكو صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس إيا التسبيح دويني وذا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إليه سبحانه وتعالى تصبيح لك عليه أدقو كمر يا إلهي حمدي قورمات لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره انت بتصبيح لك عليه بالليل واقو انتانو بريين تصبيح سو
gabalku intaanu dhicin tasbiixso habeenka bartankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixdaa iyo xamdiga haddaad wadaba ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa mufasiriinta badh baa halkan ku fasira salawaadkaa loo jeedaa laakiin culammadu waxay leeyihin wasalaatu hiya tasbiix salaadda lafteeda tasbiixa fii buyuutin adina allahu an turfaca ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال با إلهي كتل مام يسبح دان waxay mufasiriintu isku raacsayin inay tahay maxay salaadii ama se de salaada waxyaabaha ugu weyn ee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo tahmiid والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ninkii salaada ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi ina hadihi الصalaaة laa yaslaxu fiiha shayء min kalaami الnaas inama huwa التصbiix والtakbiir وaqira'aة الqur'an walidalik bay culammadu waxay dhahdaan 7 meelood oo salaada ka mida la tasbiixsadaa salaada iftitaaxeedu waa tasbiix سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القصة ما هي صلاة وتكبيرا وتصبيح إلهي سبحانه وتعالى لولي ماده ركوع هي السجود ندوى تصبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إمس نوع التصبيح صار مركل الركوع سين مركل الركوع سين كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إمس نوع صار ركوع هي السجود هي نوع التصبيح هي التحميد haddaad qur'aan akhrido oo aad aayad tasbiixa soo martana waa la tasbiixsadaa intaad salaada ku jirto qofkaan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanulfaatixa iyana waa tasbiix markaad salaada adbaara sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar waa innagaan idhaahna markaynu salaadaha ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucda xamda la socoto samica allahu liman xamido xamdala sujuudo xamdala la socoto inta kalena waa taxmiid yani salaadu waa subxaana allahi wa bixamdihi ficla walidalik baa nabiga ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxa cidhiidhi haysta wuxuu kaga baxayaa inay tahay فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قور رميه نبي أنبياء إلهي كمده وعديدي قالي مال أذك دعي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دينا كلون لقي وعلال كلون كسيجرة انتو بد قرقومي هداد بيها مسكر حسابين يسوي لي الرجاد قبطايه كلون علوشي كجرة أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محاكا عديدي بدن محاكا ورور بدن إن أدبط كل عضو وقاد لعسكد لهين وهدنا نمري كلقه وهذا علول نمري قشو ماشا مدو مركا وقاله إلهي وحولي فنادى في الظلمات مقدية دا النحدود وكان واقعي محوكو واقعي أنت ومفسردي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعقود واقعي لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين إلهي وادقا كلي لغو عابده سبحانك حمك أوفنان تاد عيبك فوقان تابو لي وحط المامية أعماشي سسمية وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بيسق الظلمين إلهي لست بظلام للعبيد بوليه بل إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة صاد صافات صاد إلهي وحين أوشاق إنه كبد بادي سببت درادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدي أنو كم دهان لهين بإلهي لي كوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيلين كوة تصبيح صدا وحلوغة شهدا في بطن الحوت كوة تصبيح صدي مفسرين تبدو حيلين أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حصي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهين با إلهي لي كوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكو جري لها هالكاسي إلى أنت لغا صبحين يا رب لي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة ترياقة أما داود النبطة إعديني قلابات يعرض لغا قبحه يعيلك لغا قبحه عموما وإلهي ذكره مركهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآنك سيت المامي مركا سي أذكار تقار كمده ذكر إلهي سيت المامية وهي تصبيح إذا مررك قارك بضيع علماء كفصران الذكر كله هنا التصبيح يهي إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامية مركا سيت داوة ينوت بل عكس جنوة كداوة آدنه مركو حوق يحوله يوحلنا ينا كبر كو قادة كبر كنوة كداوة مركا حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uu laazim baa lagu yiri إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا marka daragto ilaahi guushiisu inay ku timi iyo furashadu ay ku timi oo daragto dadkoo diinta soo galaya maxay sameeyay ilaahi yiri فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركي قوليستان وي كبران دبتنا waxay dhahan waa maalintii xorriyada waa maalintii xoog la soo bandhigo waa maalinta dadka oo dhamisugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadasho dhamina maxay ku hadashaa waa guuleysanay waa xoogaysanay waa iyaga sheega maalmaha xorriyada iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheego dhan aadanuhu isaga sheega ilaahay setaayna ma amrin إلهي وحينا أمري هداد حصيسان مركات دارنتد نعمة الله سبحانه وتعالى إيه تقول يسته إيه عدو كار دعوه إلهي كار ريبه إيه مبدأ وفافه إيه تذكر رأي قاقات دين تلا صاقله تانا أبا المركز الشكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنتانا إلهي بالله الشيقة ما أنت دبت لغو جيرنا إلهي بالله حصايا الله شيغا ما أنت بدارها لغو جيرنا إلهي بالله حصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي بالله حصاه سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح قفكم مركز سجود معيد هذا سبحان الله ابو داير هذا مركز سجود صوت الله ما يراده سبحان ربي الاعلى بالله يراده نعم كمركز شوفوا دولك الله دغا إذن إلهي وحينا تلماما يا سبحانه وتعالى عافمات كآدنه إنه كتر إلهي شيك جيسة إيا أمانتيسة إنه كتر عافمات كبني آدمك هدي عليل هذا كلنته عليل وهذا عيل بني آدمك بضي أما هالنغضو مصايب كلوك وهبستي سيدتا ذنوبتو كدلتي يا عماشة سميسو
sida mushkilaadka qadarta la kulantay nebi yuunus oo kale ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudha khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu alracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabbixna waatayr ilaahay wuxuu inooga warramayaa nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhammi inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyahy tusabbixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاlطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyahy miyaad ogayn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay ay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahayna maqashiyaa kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abu dari alghifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka طabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibnu اlxajar alcasqalaani inuu leeyahy rijaalkiisa o dhamme waa hiqaat inii shaahidun cinda الnabiyi salى اllahu calayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku haya calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahy abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaana allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantayna tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilayna buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed
iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlu sunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidka nin kastoo uu ka durugsan yahay afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bal abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalla warinaya waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshoo dhan in la gubo oo ilaahay ku waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagtay yacni lowlaa waaxida halla waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxiba tasbiixdan iyo taxmiidan daraaddeed ayaa tasbiixda 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurati اlxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilahi ma fi samaawaati wama fi اlardi wahuwa alcaziizu alxakiim ayay suurati اlxashrina ku bilaabmataa suuratu safna ku bilaabantaa suuratu اlxadiidna ما في الأرض قنبا والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيدو مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تضب السورة دو قرآن كمدة أي إلهي تسبيح دينو بلابي سيلينو درنسية مهمة ديدا شن كمدة حمد لله لينو بلابي دي الحمد لله رب العالمين يا أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شن سورة دو كمدة qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tira ma leh idan ayuha alaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixda iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البضي وحاصرا كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون إن النبي يقدكته ولا الكي هارون إن النبي يقدكته ويقحو جسد وأرنك إلى ودا جسد وايو كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا markay kaalmada dalbadeen fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fir'auna innahu tagha maxaa fircoon markuu tagayay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fircoon ka xoog badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga ba ilaahay yiri zaadkiinu laakiin waxa weeyaan wala taniya fi dhikri hakanogin wanaga xuskayga سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله دي وحي لمده كوا هكنوغينا با إله إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سين سوشيغنا وكغا ورمي نبي الله موسى إلهي كورمي يا مركي نمعدو عصبوناتي ربي مركو ويديستي انتو جعلادي انو أركو إلهو أنكو أركا ليري إلهي سبحانه وتعالى وحو يري أركي كريمي سيبال هذا بورتان إيك hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumo adigaa ka dheer
waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin. nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye cajab qabta. karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay. rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahay buu barye cajab la barye. baryadu baryayaa waa maxay? waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya, laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal. ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso. markii horena caaqir bay ahayd, da'ina waa u raacda. iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa, laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu. sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey. ilaahu aayadii yeel buu yidhi. waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa, laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa, waad xusaysaa. aayaddu waa taas baa la yidhi. qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 أyaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar. wasabbix bilcashiyi walibkaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisu ka warramaya nebiyullaahi ciisa. dabeetana waxaa la yidhi ciise umaadaa yidhi dadka aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik. ilaahay subxaanaه wa tacaala nebiyullaahi moxamed buu wuxuu warramayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila اllahi calى basiiratin ana waman itabacanii wasubxaana allahi wma ana min almushrikiin. qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayh salaatu wasalaam. waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu, isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intay raacdayba. wasubxaana allah wma ana min almushrikiin. ku dhawaaq baa la leeyay. ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la ydhaha iyaga shaqadoodaba inay tihi. wainnaa lanaxnu almusabbixuun bay leeyihin. wainnaa lanaxnu almusabbixuun. jumla ismiya la adkeeyey, adawaatu tawkiidna la ysugu geeyey ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay kaa tahy. wainnaa lanaxnu almusabbixuun. ilaahayna waa uu furayaa wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yaftaruun. iyaguna waa sheegteen, rabbina waa sheega. rabbina wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun. kala go' ma leh. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli اlcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim. ilaahay wuxuu inooga warramayaa jannada dadka la geeyaana iyana shaqadoodu inay kantay. dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin. subxaana allahi wabixamdih ayaa iyagana shaqadoodaa baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, haddii qur-aanku sidaa u balballaadhiyey intaan nusuus ka tegay aanan soo qaadanina ay ka badan tahay inta aan sheegay, waayo qor baan isidho waan qori kari waaye. qur-aanka inta ku soo aroortay tasbiix iyo taxmiid tiro ma leh, aad bay u badantay. ilaahay subxaana wa tacaala ina farayo goor walba wakhti kastoo aadana uu sheegi karo uun qur-aanka waxa ku taalla iyadoo la leeyahay tasbiixsada. subax, habeen, saqa dhexe, waa beri, xidiga dhac, goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada. idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore muطlaqaa bay ka mid tahay. subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatih. siyaqaad u tiro badanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ugu soo aroortay.
qaababka loo tasbiixsanaya axaadiista haddaad akhrido nebiga calayhi salaatu wasalaam ee jidru sabbaxa ku soo aroortay ama xamida ku soo aroortay aad bay u tiro badan yihiin iyana ee tilmaamaya noociyaadka tasbiixda loola yimaado dee salaada dhammaanteedna subxa baaba la yidhaahdaa walidaalika bay culamadu waxay dhahaan subxatu duxa ama waa ka cumar laga sheegay inuu leeyahy low kuntu musabixan la atmamtu culamada badh baa yidhahda subxada inta badanta sunnadaa la yidhaahdaa laakiin mufasiriin badan baa waxay qabaan macta kale in la yidhaahdo goorma wakhti walba waa la tasbiixsaa xaalad kasta aad ku jirto markaad yaabtaa subxaana allah la yidhaahdaa markaad dhibi ku qabsataa subxaana allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa markaad nimco aad hesho ama ay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa faraskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunna lahu muqriniin nimco cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu اljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo waa inaad dembi dhaaf hesho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad اlbaxr qofka yidhaahda maalin 100 jeer subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad اlbaxr xoorka badda oo kale hadday mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafaya wixii shidde iyo dhib ku haysataa lagaaga dhaafaya laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabbixiina lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcatuun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay yidhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay yidhaahdaan qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii markuu soo waday kay nusabbixaka kaiirantu waa cillo way u tahay bay yidhaahdaan sidaa awgeed maadaamaynu bilcibaado ku jirno caawana ay tahay habeenkaynu rajaynaynay arjaa leyla loo rajaynaya inay leylatulqadri tahay habeen wardi iyo dikri iyo ilaahay xuskii ay tahay qofka muslimkii uu badsado adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagantahy afarteeda dacalbana muslim ooya iyo mid sakaraada iyo mid ilmaynaya iyo mid dhintay iyo mid la sii sida uu ka muuqdo weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ahlusunna waljamaaca ayay u badantahay inta maanta caalamka la kadeeday in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa inna kuwii gaaleed baa kadeeday inna ahlu bidac gaale u soo raacday baa kadeeday isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay ciddii wax iska dhicin karaysaa waa iska dhicin inta kale waxay ku bogsoon oo laabtooda ilaahay ku shaafinaya subxaanahu wa tacaala inaad tidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim wsala allahuma calaa muxamadi wcala alih wsaxbi wslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira dikran kaiira 10 meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay kaiiran un ilaahay daba wado ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha maaha qura
إلهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت اللي يري أي كثيرا دبط الله وسبحوه بكرة واصيلا بإلهي إلهي حس تربضا له وسبحوه بكرة واصيلا سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.